dhibaatada waxay ka socotaa 5 qofood taana waa aragtida shakhsi boqolkiiba boqol oo ku khaldanaan kara waxna ku saxsanaan kara waxna ku khaldanaan kara 5 qofood ayaa nolosha kharibeen falaasifadii hadda soo soo dhiseen diin ahaan kuma dhisin annagana lil asaf waqtigan hadda la joogo sunshine ruuxdiina waa loo soo jeedsaday diinta saxa ah aan xambaarsan aniga ictiqaadsanahay diinta islaamka haddii laga sifeeyo 5taas qofood aan sheegi doono haddii laga sifeeyo 5taas waxyaabood waxaa laga yaabaa dadkan diimaha lagu diray inay diintan sababta diinta xaq ma aysan soo gaarin diin inxiraaf soo gaartay waxaan idinkaga sheegay Thomas Aquinas wuxuu ku dadaalay diinta Kirishtaanka inuu ka dhigo diin macquul ah diinta caqliga la tacaamulayso waxa akhristo kutubtii Ibn Rushd caalimkii filosoofka muslimka ahaa laakiin way iskeeni waayeen caqliga diinta Kirishtaanka way iskeeni waayeen wuxuu ka qaban waayay falaasifadii markaan horada kugu sheegay waxay u bateen rububiyiin theist ma noqon theist yani qofka ilaaha caabudo weeyaan ilaah inuu jiro waan rumaysanahay laakiin diintan khuraafo weeyaan ma qaadan karno macquul ma aha way ka carareen macquuliyadii diinta uga carareen iyo diin macquul anaga aan haysano laakiin anagina waxaan haysanaa dad diintii u diiday macquuliyadii diintii ka dhigay diin caqliga la dagaalamayso qofka hadduu fikirana lagu magacaabayo waa caqlaan ama wax la mid ah taa marka yaa maxaa sababa waxaan iri 5 waxyaabood 5 arrimo daraadeed ay dhibaatooyin ku yimaadeen igana raali ahaada maanta kishkood ugu bartaan xoogaa hadallo dibicsan waxaan ku hadlo waxa laga maanta hadallo khalafsan oo xoogaa laga filanay inaan ku hadlo laakiin waxay iga tahay wallahi dadku jaasiyasna igama aha laakiin amaano gudadiini ah dadka noocaas ahna baraaruji dadkana ha ka baraarugsanaadaan aniga waxaan qabaa diinta si diinteena islaamka marka loogu didin 5 waxyaabood ayaa waxay noqonaysaa caqabo kan koowaad waa kan lagu magacaabo idiot seventh muxuu yahay doqonkii caalimka ahaa qaf doqon ah ayaa caalim noqda way jiraan dad doqomo ah oo IQ-gooda 50 ka hooseeya IQ-ga 69 haduu ka hooseeya waa qaf caqligiisa liito qaar 50 ka hooseeya IQ-gooda laakiin cilmi bartay wax xifdiyay ayaa jira doqonka caalimka ah dhibka uu keenay marka maxay tahay qofkan wuu dadaal wuxuu bartay laakiin waana doqon dhibka uu keenay maxay tahay wuxuu yiri caalimkii Jarmanka ahaa ee ku dhashay Mareykanka kuna fiicnaa cilmiga ma aragtay abwaankana ahaa Henry Charles Bukowski wuxuu yiri dhibaatada dunida waxa weeyaan kii caqliga badnaana shaki ayaa ka buuxa kii caqliga yaraana kalsooni buuxdo isku qaba maxay tahay marka kii caqliga badnaa uu shakiya حتى هدو ددالي ويلي شكيا كجرا إمام أبي حنيفة مركي لي يري رأي كانت أركتي ما حقي أن باطل كلا سعنين بحيرو حلقة يا رأي جينو هي باطل كان حق لا سعنين إمام الشافعي حورين جري وحي رأي جي وإلى الصحيح لك وخلدان كرا ضدك عقلاء هذا ويلي وهذا شكيا كجرا وحياو بدني أعراض كبدلان برتراند راسل فيلسوف كها مركي الروي ما لو يري haddii lagu yiraahdo falsafadan ka laabo aad la timid ama waa lagu dilayaa maxad sameyn lahayd waxay falsafadeedan ka laaban lahaa sababtoo ah falsafadeeda lama hubo inay saxan tahay inay khaldan tahay ayaa dhici karta laakiin nolosha waan hubaa inaan noolahay tii hubay maan ka leexanayo leeyahay waxaan hubin aan u leexanayaa Pierre Pial wuxuu leeyahay falsafkiga Faransiiska ahaa waxa la hubo nolosha kaliya waxa weeyaan inuusan jirin wax la hubo waxaa la hubaa inuusan jirin wax la hubo qofka caaqilka marka shakiya ka buuxa markasta qofka caqliga gaaban kalsooni buuxda isku qaba tusaale aan idin siin shalay waxay soo wacay inaan saaxiibnahay Ingiriiska joogo madaxweynimo isku sharxi jiraada ka hor Usmaan Maxamuud marka su'aalo diini waxa uu weydiinaa waxaan ka sheekay waxa soo galay marka arrinta ku saabsan dadka ahlu kitaabka gaalada aan la noolnahay ma banaana in salaanta lagu bilaabo حديث أيوة كوي مثل ذكرنا واقع شرحي واقع شيء مركا كي أها إديت سفنت كي عقلي جابنا مركا حديث كاس مخلو حفظنا وكله وحصوري إمام مسلم أحمد بن حنبل أبو داود عن سهيل يا لا يصوري ميكروفون كدمية
dhib ma leh waxaa laga soo wariyay ku leeyahay Suhayl ibn Samaan in ma aragtay Suhayl ibn Abi Salih as-Samaan can Abi Hurayra nabiga inuu yiri dadka ahlu kitaabta salaanta hayaan lagu bilaabin jidka dad ku aragtaan ku cariiriye waan sharxay qofka aqliga gaaban taas oo soo qaadan idiot 70 qofka aqalkan wuxuu leeyahay laakiin ilaahay quraanku wuxuu ku leeyahay la yanhaakumullahu can alladhina lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum ilaahay idin kama reebin kuwa aan diin ahaan idin kugula dagaalamin gurihiina idin ka saanaa baari u noqotaan marka maxay wax u jiraan qofkan baaritaan markuu sameeyo aqalka ahaa uu ka shakiyay waxa uu soo baxayaba Suhayl ibn Abi Salih as-Samaan inuu ahaana maskaxda qasantay oo culimadii xadiiska ka hadlaan Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Qattan Razi Abu Imam al-Bukhari kulli wada ka sheegay markuu wiilkiisa ka geeyo maskaxda qasantay waxa badan isaga hadli jiray warsaqada kii dila ajir ayuu ka helaya kan marka kii taasa marka loo kala dumeeyo markii aqliga gaabnaa number 2 aan iri shantii idiot 70 yaa ku xiga waxa ku xiga qof qabo psychopath waxa kaga sheekeeyay 10kii aan ugu sheekeynay maskaxda cortex system-ka ay ka jiran yihiin qofka psychopath-ka culimada psychology-ga waxay isku waafaqsan yihiin oo loo og yahay inuu ku fiican yahay jilitaanka psychopath-ki wuxuu ka xifdiyay xadiiskii ama naskii kii ahaa idiot 70 psychopath-ka jilitaan ku daray wuu khayliyay wuu iscareysiyay serious iska dhigay sababta qofka psychopath-ga uma maleeyo in la fahmayo jilitaankiisa qofka aqalka wax jilay wuxuu ka cabsanayaa in la fahmo laakiin dadka inuu ku aqal badiyo isku haystaayo iskuma haysto jilitaanka in la fahmayo qofkii psychopath-ka ahaa jilitaanka ayuu ma arag ku dheeraaday ana marka maanta horta hadaan madaxweyne ahaan lahaa meel maamul lahaa waxaan oran lahaa culimada qofka intuu soo caalim u noqdo dadka duruus u akhriyo horta MRI ha lagu sameeyo maskaxdiisa ha la baaro wallahi culimo badan waxa cortex system-ka inay ka jireen soo bixi lahaa qaarna waxa soo bixi lahaa inay ma aragtay memory inay lose gareeyeen يعني محسوستي حتى إني بيلان خاركود خفكي شالي وح كهدلاي بيرتن وح أبسط كهدلاي محاكو تمامي كرتا إنه ممرقي ما أركتي أنا الزايمر إنه كل عي خفكان وأركتن يعني دكتور ماجي دكتور مرخ دقاق دور سنة كهر محيري وحير أشاعر ذا بخل كي وبخل وجهميين أهل السنة والجماعة كوامد أها فرق الناجيين كوامد أها وحي خوان قرآن إنه مخلوق يهي وحي خوان إلهي نوموس إنه الله هدلين هذا أنا مركو إقاليسين محيري كشكي أشعري ما هو جهمي أنا جي أشعري ذا اسكم الديدني قرآن إنه كلام الله يهي اسكم الديدني نوموس إلهي إنه الله هدلين يا أشاعره كشكي وجهمي أشعري ما اسك إلالي يودين وسقين سو أزايمر ما هو خفكاس مرك هذا الكدرات كهذا أبسط كيسو كهذا هذا وحكو درس سايكوباثني وجيلا يعرض وأركتين اسكو عريسينا مرك علماء بدن ما أنت وحكو صبح لها عذراء وما أركت نفسي سايديزم كو صبح لها نيكروفيليا كصبح لها يعني مرك وحكو في عنان لا ترت إمرأة إن لو سمع مرك على كل حال كم كواد وحنري خفكي خوي خفكي أها إديت 7 وحكو حاجة سايكوباث أنت أسمعك عن كسود دقنا يعني IQ وهو سايو وحن أسود دقايا ما أنت أنيقو كحن animal psychology علم النفس حيوانات كعلم النفس جود ما حد عي قفك يعني بني آدم كحيوانات كبحيقة وحلقوا معه conscious mind خيب لحظة كوجت مسكحة dadku ugu fikirka fiican boqolkiiba 40 isticmaalaan bini aadamka xayawaanka ku xigo ee boqolkiiba 17 ka isticmaalo waa daanyeerka lagu magacaabo chimpanzee chimpanzee 1993 ilaa 2004 markii culamaa nafs psychology ahaan ay baaritaan ku sameeyeen waxyaabaha soo baxay bini aadamka inuu la qaybsado waxa kamid ah tan koowaad waa social oo isdhaxgalaan si bini aadamku ay social u yihiin wuxuu ku fiican yahay ku dayashada chimpanzee-ga aabihiisa mar walba ku dayada mid walba kale ku dayada waa ku dayasho wuxuu jecel yahay wax inuu maamulo wuu maseer badan yahay afartaas dad waxaa jira marka sidaas oo kala ah aqliga chimpanzee-ga xambaaray wuxuu jecel yahay social inuu ahaado dadka dhaxgalo arday ayuu leeyahay waa taqliidi lagama yaabo fikir cusub inuu la yimaado
dadkii hore wuxuu ka soo qaaday buu kugu soo celcelin. caqligii xor ma aha, waa caqligii shimbaansiga oo taqliidiga ahaa. wuxuu jeclay wax inuu maamulo, xertiisa inuu madax u ahaado, isaga in laga dambeeyo. wuu maseer badan yahay oo qof ka fikir duwan hadduu soo baxo shimbaansigii deganaa maaha, wuu soo weeraraa, taagu ku soo qaada. caqligaas shimbaansiga ahna dhibkaasuu leeyahay. kan ka sii dara marka dhibka keenaya maxay tahay? caqliga shimbaansiga caqliga ku xigo ay ku tilmaamaan culammada bini aadamka xoolaha ugu horeeya la tacaamulay wuxuu ahaa caqliga eyga. eyga 7% ayuu ka isticmaalaa conscious mindka. eyga waxaa lagu yaqaanaa daacadnimada, daacad weeyaan. xataa shaacirkii carabta alxaaris ibnu sacsaca wuxuu oran jiray walilkalbi khayru min khaliilin yakuununi saajcalu kalbii maa xayiitu nadiimi. eyga wuu ka khayr badan yahay saaxiib i khiyaanayo, inta aan noolahay eygeygaan saaxiib ka dhigan. eyga waxaa lagu ogyahay daacadnimo, waxaa lagu ogyahay naf hurid, wuu u huraa qofkiisa. waxaa lagu ogyahay tababar inuu qaato, wamaa callamtu min aljawaarix mukalabiin. waxaa lagu ogyahay meeshii loo dirane inuu isagoo caraysan ataago. dad marka waxaa jira shimbaansigii eeye oo noqday. marka maxaa tababara loo siiyey? qofkii isagoo caraysan oo kusoo ataaga, war aniga maxaa kaa halaya? waxba igama halaynin, laakiin sheekhayga ayaa ku gaalaysiiyey. markuu ku caraysnay wuu kusoo ataagaya, inuu ku dilou rabaa. cuquushii bini aadamnimada way kasoo degeen, cuquul waxay usoo degeen eynimo. waxaan la yaaba marka caqligii indheergaradnimadii nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu ka sheekeynaya khawaarijta muxuu ku tilmaamay aakhir zamanka inay soo bixi doonaan dad dhalinyar ah, caqligoodana yar, da'doodana cusub tahay, qur-aankay akhriyaan, hadalkaygana way sheegaan. yani fiiri ma oran quraan, hadalkaygana way akhriyaan, axaadiista way sheegayaan, way ku doodayaan, qur-aankana tajwiid ahaana way akhrisanayaan. haye muxuu ku tilmaamay marka inay ahlul iimaanka ay dilayaan, muslimiinta ay dilaan. intaa muu ku ekaaday xadiiska riwaayadda uu soo wariyey ibnu maajah iyo axmed ibnu xambal ay ka soo wariyeen ibn abi awfa oo albanina saxiixiyey maxay leedahay? hum kilaabu naar, waa eyyaashii naarta. naarta eygooda weeyaan. sababta duniday ey ku noqdeen, kii loo dirba iska ataagaan way dilaayeen, iyagoon caqliba isticmaalin. eyaa la leeyahay noqdeen la xukumo. kuwaasna dhibkay keenaan. kilaabu naar oo ku tilmaamay. riwaayaddii soo kale can abi umaama albahili laga soo wariyey oo soo wariyey imaam tirmidi oo albanina saxiix maxay leedahay? fahum kilaabu jahannam, fahum kilaabu jahannam, fahum kilaabu jahannam. 3 jeer nabigu ku celiyey waa eeyaashii naarta jahannam, waa eeyaashii naarta jahannam, waa eeyaashii naarta jahannam. hordhacan hore si dhigto waxaan iga raali ahaado, hadalladii xoogaa waa khalafsan yihiin maanta, laakiin ilaalin diinta islaamka weeyaan. qofkii marka maanta naceeb saasoo kale kuwa xambaaro, walaa dad qaar waa la yaaba markuu ii soo qoro dadka qaarkood comment ama messengerka igu soo diraan, eeyahow eyga dhalay ee gaalka ah. markaasaan aa talow labadan yaa ey ah, yaa la soo dirsaday, ima yaqaan wuu ii caraysan yahay. hal kitaab inuu akhrisanaa dhici karta, laakiin mister majiyaa soo diray ama waxay la mid ahaa. dadka qofkaa marka eyga waxaa lagu yaqaanaa daacada u yahay, kana sheekhiis daacada u yahay. nafsadoo u huraa, sheekhiisa nafsadoo u huraa. sababtoo ah waxaa ku ogaanaysaa mashaayikhda dadka saa u dhiirigelinaya, iyaga maxay dagaalada ugu qaybgeli waayeen? baadariyiintana kaniisadooday fadhin jireen, mashaaikhdana saasoo kale xarumahooday fadhiyaan, mimbarkooday wax ka soo ridayaan fallaarihii. iyaga kama qaybgelayaan. maxaa dhacay? nebiga saa ma ahaan jirin. nebiga safka hore ku jiri jiray mar walba. dagaalkii ugu horreysay ama ahayn dagaalkii beder, markay mushrikiinta u soo baxeen oo 3 isaga soo saareen, cutba ibnu rabiica wa shayba ibnu rabiica iyo waliid ibnu cutba, 3 u soo baxeen. yidhahdeen yaa maxamed 3daanan kuu soo saarnaaday, 3 noo soo saar. nebiga hadduu ma aragtay culimmadeena haddoo kale u yahay, xataa qofka hadday qaraabayihin dib u dhigan lahaa soo ma aha. nebigu hadal muxuu ka bilaabay? yaa xamza yaa cama rasuulillaah, xamza adeerkii nebigow. yaa caliy ya bna cami rasuulillaah, caliy bn abi aalib ina adeerkii nebigow. yaa cubayda ibn alxarth ibn cabdilmuطalib ya bna cami rasuulillaah, yani cubayda ibn alxarth ibn cabdilmuطalib ina adeerkii nebigow. qumuu ilaa jannatin carduha asamaawaat walard, u istaaga janno oo samaawaadka dhul kala eg. dadkiisu huray, hilibkiisu huray, dadkii ilaalinayeen ayuu ka bilaabay safka. qofka ugu horreeyay dagaalka beder ku dhintay oo ahaa cubayda ibn alxarth, nebigana adeerkiisa isagoo dhaawac dhabta loo soo saaray. daacadnimo taasaa la yidhaahdaa.
laakiin shimbaanzigii inuu xaruntiisa fadhiyo eeyaashii uu soo diro yidhahdo dadka guba dadka dila dadku qarxiya iyaga waa lagu yaqaan nafsadu wuu hurayaa adigoo kula jooga eygaaga hadduu libaax ku soo ataago wuu og yahay libaaxa inuu ka awood badan yahay laakiin ti adii lagu cuni laha isagaa is horumarinaya marka cuquusha waxaa jirta cuquushii qaadatay levelkii 7 7% ka isticmaalta conscious mindka oo eeyaal noqday iyagan dhibaatay keeneen kan saddexaad ka hooseeyo waa kuwa lagu magacaabo caqliga 3.5% ka isticmaalo oo ah big cat eeyaashi waaweyn bisadaha waaweyn libaaxa shabeelka wixii la mid aha kuwa maxay ku nool yihiin libaaxa arkay tababarka la siinayo badanaa waxaa kale fi laba waxyaabood ama cabsi uu ka cabsanayo birtan loo haysto oo korontada lagu gubayo markastoo cabsi ayaa cuqdad gelisay ama raashin oo qofkan ka rabo that's fine raashin oo qofkan ka rabo inuu siiyo haddii raashinkii ama wixii uu waayo waxa laga qofkii inuu cuno waa ogeyn shabeelkii ninkii korsaday ninkii asagoo garka iska xiira iyo shabeelku yimid marka meel yar iska dhaawacay that's fine qofka dhaawacii yaraa ay shabeelka leefay dhiigya u macaaday qofkii dhan oo cunay ninkii iska la korsay cunay dad saasoo kala jira marka dan dhaqaalo u geystay waxyaabahan ama cabsi oo haday ka soo baxaan ururkii in wadada lagu dilo marka isaga intii la dil lahaa qofka inuu dilo marka shantaas nooc ayaa diimihii waxay u keentay kharaabkan iyo dhibaatooyinkaas si loogu baxo marka maxaa loo baahan yahay anaga ma oranay dadkaas hal la dilo qofka noocaas oo kala ah يعني aan ku tilmaamay ama eeyga ama libaaxa hal qof ama laba qof oo dili kara soo ma aha laakiin waxa dhibka muxuu ka yimaada fikirkii khaldana aqligii khaldana idiot savant fikirkii khaldana waa in la dila dadka hanoo noolaadaan laakiin fikirkaas khaldan aan dilno qofkii marka waxa arkaysa oo walaalkaaga oo isbedeliyo oo fiicnaaday that's fine iska dhaaf leeyahay مدمي هذا في that's fine هذا الدمي إلا وكده ما أوكي واي فكركاس خلدان أيوة حلو باهني هاي دتك إن لقد ديلو دتك إن لديلو معها فكركاس خلدان هدي لديلو وحناصب بحي أوح في عن أو نظيفة أو وناكسن دين تان هدي مركو حواس لقاسي فيه دين قروح بدن أو روحانيات كذا إيو أخلاقيات كذا إنسانيات دي لقات أيا صوب حيسة 10 كي جماعة تسأيون كسوكوا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.